730 maalmood waa 2 sano kadib waxaa magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar ka socda wadaxaajoodka heshiiska Falastiin iyo Israa'iil taasi oo ay barako ka ahaayeen Masar, Qatar, Mareykanka iyo Turkiga. Waxaa la isdhaafsaday liiska maxaabiista labada dhinac oo ay doonayaan in loo sii daayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu ka qayb galo shirkaasi halka xoogga iska caabinta ee Hamas uu shirkaasi ugu qayb galayo nin aad halis u ah oo ay Israa'iil aad u doonaysay in ay dilaan waa gorgortankooda ugu sareeya Khalil al-Haya hoggaanka aan gabanin oo ka badbaaday isku day dil oo ay Israa'iil bishii hore isku dayday in ay ku dilaan Khalil al-Haya magaalada Doha ee dalka Qatar. Khalil al-Haya wuxuu maalin saddexaad ku sugan yahay magaalada Sharm el-Sheikh waxaana ilaalinayo ciidanka sida gaarka u tababaran ee markii la soo gaabiyo loo yaqaano GIS ee dalka Masar. gorgortanka xoogga waxaa ka mid ah in ay helaan meydadka geesiyaasha reer Sinwar, Yahya Sinwar iyo Maxamed Sinwar, iyo sidoo kale xoog muhiim u ah Hamas sida ninka lagu magacaabo Marwan Barghouti, balse Israa'iil waxay sheegeen in ay sii dayn doonin Marwan Barghouti. Haddaba markii lagu dhawaaqay heshiiska labada dhinac, dabaaldegyo xooggan ayaa maanta ka dhacay magaalada Tel Aviv iyo sidoo kale gudaha Gaza. Turkiga iyo Masar ayaa damaanad qaadayo xoogga Hamas halka Mareykankana uu damaanad qaadayo Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa la arkayaa in ay isu diyaarinayaan in ay ka baxaan qaybo ka mid ah Gaza. Haddaba warkan iyo shirka heshiiska Sharm el-Sheikh waan idiin soo gudbin doonaa.